Assalaamu calaykum kusoo dhawaada channelkayga. Haddii ay tahay markii ugu horeysay ee aad channelkayga soo booqato, waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe ii saarto. Anigu waxaan channelkayga soo geliyaa cuntooyin si fudud loo sameeyo, waqti badanna aan ka qaadanin. Haddaad tahay qof ardaya ama qof degdegaya ama qoftii waqti badan aan rabin inuu kitchada galo, aad iyo aad ayuu channelkaygu ku anfici doonaa insha Allah. Maantana waxaan idinla wadaagayaa cunto aad u fudud, waqti badanna aan qaadanin in la sameeyo. marka daawasho wacan ayaan idin leeyahay. Fiidowgeenu maanta asxaabi wuxuu ka kooban yahay waa cabitaan, koosto iyo maanga laga sameeyay. Sidan quruxda badan ayuu inoo soo baxay. Maasha Allah tabaaraka raxmaan, indhaha ayaa ka boganaya. Waa cabitaan aad u fudud, waqti badanna ma qaadanayo. Maasha Allah, marka imika fiidowga ayaanu gudaha u galaynaa. Waxaan idinla wadaagayaa sida aan u sameeyay cabitaankan quruxda badan. waxa uu ka kooban yahay cabitaankani sida soo socota: 2 milqaacadood oo yogurt ah, plain yogurt ka ayaan anigu isticmaalaa. Kuusto 1 koob oo baby spinach ah, ama waad ka badsan kartaa waad ka yareysan kartaa. Sidoo kale 1 koob oo casiirka maangada ah ama maangada diyaarka ah, 2 milqaacadood oo sonkor ah, meesha malab ayaad ku bedelan kartaa, iyo xabad muus ah. intaas oo kaliya ayaan anigu isku ridqayaa. haddii uu cabitaanka marka aad sameynayso ka yara adkaado, in yar oo biyo ah ayaad ku dari kartaa, ama caano caadi ah oo dabiici ah ayaad ku daraysaa haddii aanad biyaha rabin, oo caruur siin karto ama qof raba inuu uu weight ku kordho ama uu isnaaxiyo doonaya. meesha aad biyaha kaga dari lahayd ayaad ku bedelanaysaa caano caadi ah inaad ku darsato. waan isku wada ridqayaa imika sidaad aragtaanba. maasha Allah, saad aniga iga barateen mar walba waxaan isku dayaa inaan idinla wadaago cuntooyin ama cabitaano waqti badan aan qaadanayn. saan horeba idinku sheegay, channelkaygan waxaan ugu talagalay inaan dadka ugu soo gudbiyo fikrado cusub, cuntooyin cusub oo lagu sameyn karo, waqti fududna lagu sameyn karo. qof walba nolol maalmeedkiisa ayuu mashquul ku yahay. qof wax baranaya, qof shaqeynaya, qof caruur korinaya, iyo qof isagu mashquulba iska ah. marka mar walba waxaan jecelahay inaan soo geliyo cuntooyin ama cabitaano aad u fudud oo waqti badan qaadanayn. insha Allah wixii imka ka dambeeyana rutiinada ayaan idin soo gelin doonaa. marka waxaan rajeynayaa inaad fiidowgan ka faa'iideysateen. san horeba idinku sheegay, intii aan idin soo sharaxa ayuun baan isku wada ridqayaa. xagga aan sonkorta kaga daray, kole dad badan baa commentka igu qori doona sonkorta mad malab ku bedeshid. aniga maanta sonkor ayay iga haysay, laakiin meesha malab ayaad ku bedelan kartaa. most of the time anigu fiidowyada markaan soo gelinayo waxaan jecelahay inay healthy ama caafimaad wax ku saleysan ay yeeshaan. marka malab ayaan badanaa ku bedelaa, laakiin maanta sonkorta ayaan doorbiday. maasha Allah tabaaraka raxmaan, cabitaanka aadka u macaanka badan ayuu soo baxay. aniga greenka aad ayaan u jecelahay. waxaan jecelahay markasta wax green ku jiro ama cunto green la inaan soo geliyo. waxaan rajeynayaa fiidowga maanta inaad si fiican uga bogateen. intaan fiidowgiisa ku kulmi doono insha Allah, waxaan idin leeyahay fi amaanillah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina cadaab an-nar. ilaahay inta haysatana u siyaadi u barakay, inta aan haysan Allah ha siiyo. ma jiro hoos ruux u geeya amaba hore kuu kaxeeya. naftaada adaa hogaansha, adaa haya keenadeeda, halkaad u jihayso weeye. kun haybood noloshu weeye, kun hawlood baa ku xeeran, kun bay hakisaa dhara. leeyahay.